fowdaystayaasha hada fowdada soo abaabushayn insha Allah gacan birahan ku qabad doonaa ma moogin waxaan rabaa marka inay iraado haddii alla idin idmin hayo annagu da shir baan lahayn la yiraahdo shirka beesha cali madaxweyne aan Soomaaliya joogin oo banaankeeda haddii alla idin idmin hayo wax walbana sida la rabay noogu socdaan shirku maanta uu noo soo xirmi doonaa cid walba iska qaylisay waxa waayeen cali markuu dantiisa garta dadka dhamaayga dantooda garanay waxa hadda lagu kala faa'iiday oo habar walba la qayliso waaba inuu caligu dantiisa aqoon laakiin cali dantiisa yaqaanan hadda soo wadna marka inta ka horeysa hal iska sii qayliyo hal iska buuqo qol hal iska soo furto Facebook hala tago TikTok hala tago jidka isbaaraha la dhigto waxa soo dhan maxay ku timid isku soo duuba cali badantiisa aqoonin shaqada aan hayna wadadan aqoon aan ahayn laakiin maalmahan oo dhan waxaan u fadhinoon ku maqnaynaa waxay tahay inaan dantayna garano marka anagu taayna garano dadka dhan ayaga dantooda garanayo dadka dhan ayaga cali iska noqon doono cid hadda ka naxaysay cid ku farxaysan aniga xabiiga ma gelin waa taqaan janaalka warkiisu waa iska cad yahay meel walba joogtaan marka beesha aad ee tunka weyn waxa la dantiina karta dhibaato dhan waxay idinku dhacda dantiina aan aqoonina shaqada haysiinana aqoonina adinka iska kala socdo adinka nin walba iska ord waxaad u maleeysiin dad indhaha dhagaha sixir looga rido waxba ogeey wixii yara balweyne ka dhacayna dhib ma laha taas waa arrin iska toleed ninka la duubay kuwa diiday waxaas qaraabo waa adinka iska qaylinaayo oo cirka soo duminayo muugiye dad isla dhashay dantooda waa yaqaaniin weligeeda nin camalo jiray nin oo hawsh iska sii wada jiray taasna arrin famil waa ida naftirkeedu tan markaan ka soo dhamaanaanba taasoo guudna ku xijin doona waxa soo dhan way soo afjarmaan dadna haday badan yihiin inta meel isku keen hal fikir laga ma dhigi karo nimankan marka meesha ku shiraaw nabadoonka duubay iyo maclaa waxa inta diidan hal qoys oo ilaahay iska badiyay marka fikradoodii la isku keeni karin waa anu marka ciidan cambaaraynaba ma jirto kii gudaha ku jiray iyo kii banaanka joogaba dad isla dhasho oo markaas faham way soo kala dhax galay shaydaan kalan oo dabka biziinka uga shubay waa dadku marka waxay islihiin war dadkan magaga badano haddii isfahmaan hal nabadoon wada sameystaan xaba laga ma qaban karo marka cali dantiis yaqaan markaan keeno aan diga dantiis yaqaan keenina u sii gudbayna marka intii ka horeysa laakiin intii wax iska fowdaynayso wax iska qasayso waxay rabaan sheegayaan wax ku dheelaayiga u taala marka anagu digaanahay dib ma lahan qayb way gudba kartaa diga kamida qayb diga kamida wanaag way ula muuqan kartaa gudaha way iskaga jiri karaan marka rag anaga waxay sameeyaan hadda waa arkeen laakiin cid inaan joogo iraado ma rabo kuwa xataa cid u dirsan oo siyaasi ahayn oo dhaqan ahayn oo anaga dadka matalna loo makroofana wata waa arkaya u dirsaday kuwii la duubay joogay ama waxa diidaan ama ha oggolaadaan dadkan kuwaasi ku gowracan yihiin waana arkayseen kacdoonka baraha bulshada iyo dadku sidii wada taageersanayeen qofkay dirsadeen ama uu xumaado ama uu fiicnaado midna way jirtaa mar waxa jirto adoo qofka iska qaban rabo u socdo ee dad kale ku jecelaysayaan adooba shaqadii aad iskaga qaban lahayd bahaayba marka kuwa inta badar soo doonteen waxay iska leeyihiin dadka anaga matal oo goormaad matashiin oo leedin dhiibo oo leedin daray wax leedin dhiib ma dhaqankeed u gafaysin wixii qaldan maad saxdaan wixii qaldan hadii wax qaldiin maad saxdaan sidaas ku kanteen soo meed banaanka yaalo ina gudaha aad mikrofon ku haysato iska baqbaqtiraad war xataa dhaqan muslim ma marka isku soo duubo haduu meed yimaado waa meed muslim filan waaba dhamaadaba laakiin dadaaba wali mikrofon si wata waxay leeyihiin kuwa banaanka ka qaylinaaba matalnaaba wax aadna matashiin ma lahayn adinka iska keen qabanayna kuwana wala iska qaban rabnaa hadda ka leexanayna haddii alla idin idmin hayo marka insha Allah maanta wixii ka dambeeyo anagu wanaga tagana soo wicina waa noo jeedaa wasaqayl ka dheer marka haddii alla idin idmin hayo anaga hawshayno maanta ku agtaa duu Ilaahay yiraahdo alxamdulillah shukr rabbil caalamiin in wax kastaba ku yihiin marka waxaad rabtiin ba iska buuqbuuqay waxa waa dadka moogta qoloba meesha rabtay wixii iska la aadaan anigu saana u fiiriyo shibankeeda marka ayda soo dhamaad doonta iyo wareedin ka tigin Abdullah Salaad Calool weyna adigu weligaaba shaydaan adeed laakiin shaydaannimada cid kaaga tabar yaro ma jirto cid kaaga tabar yaro ma jirto wallahi oo billaah oo tallahi cid adiga kaaga tabar yaro inaysan maanta jirin ayna joogin ayna adduunkan saarnayn oo la soo helayn laakiin balaay maxay ka dhacday
dadan dantooda aqoon inaad ka faa'iideysatay dadka markaan dantooda tusno bal cid hadashaa la arko war waa la soo wada joogi jiray 30 sano wadankan dawladu ka maqnayd dawladan macna lahayn oo xamar guryaha boobaysa iyo wala xir shabeelle la leeyahay markay yimaadeen ay dadkii neef ka soo fuqday hadleen musasooda muxuu yiri xamar waa joogi jirna mana la hadlay jirine hadda buuqaan muxuu yiri war waa la soo wada joogi jiray almaadaariyaal ciduna ma hadlay jirine markii walax boolis la leeyahay iyo wala xir shabeelle la leeyahay aad aragteen cid walba intay meegeed iska rakatay iska hadlaysa war dawladdu 27 sano labada dawladood u dhaxaysa xal loo hadlay dadku intay jireen xilligaas meel walba anaga joognay oo la dhigi jiray oo nalagu magac diri jiray xataa jidadka dadku intay jireen markaas